magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa saaka mar kale waxa dib uga bilaabmay dagaal kaas oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo sidoo kale maleeshiyada koonfurta magaalada Gaalkacyo. Dagaalkan oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Puntland oo uu ka mid yahay wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose ee horumarinta reer miyiga ee dawladda Puntland oo shirjaraad ku qabtay magaalada Gaalkacyo. Dagaalkan qaabka u dhacay khasaarihiisa ayaa warbixin la xidhiidha waxa magaalada Gaalkacyo nooga soo diyaariyay wariye Burhaan Maxamed Cabdi. dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayaa dawladda Puntland waxa saxaafadda galabta lagu soo wareejiyay goobihii uu dagaalku ka dhacay kaas oo ay kontarolayeen ciidamada dawladda Puntland. wasiir dawlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Puntland Ali Yuusuf Jaamac iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuuriye ayaa labadaba shirjaraad oo ay ku qabteen magaalada Gaalkacyo waxa ay ka warrameen dagaalkaasi iyo sidii uu dhacay. maalintii hore waa tii dagaalku dhacay waa tii dhimashadii dhaawacba ka dhaceen waa tii wada hadal la bilaabay odayaasha dhinaca iyaga ilaa maalintaas ilaa maalinka saakaya wada hadal bay wadeen maalinkii arbacadii iyo khamiistii iyo jimcihii saddexdiiba waa loo gooyey oo saddexdaasba dhinaca kale waa u gooyeen maalintii talaadadii waxay ku ballameen inay diilay ku run yahay subaxa arbacada ay wadada furayaan hadii la ku run yahayna dawladda Puntland iyo ciidamadeedii waxeeda ay dib u la laabato odayaashii go'aankaas waa kala qaadanay waxay subaxa bariis 2 saac baan anagu diilay ku run wadada idin furaynaayay walaalayaal waxaan ka codsanaynaa ciidamada dagaalka naga joojiya dadkan ehel baan nahay deegaan baan nahay dhulkan wadaganaa dad Soomaaliya nahay dhulka Mudug la ku kala guuri mayno xabadana xal noqon maysa guryaha iyo agoonta iyo caruurta iyo dhulka naga qaxinine noo kaadi yiraahdeen anagu inta waa aqbalanay odayaasheeda gacmaha haystay raali baan ka ahayn subaxii saakay ahayd oo ugu dambeysay aniga oo taagan meesha la yiraahdo hotel kulmiye ama city center si loo yaqaano bay odayaashu waxay oo ciidan madani u badan halka ay joogaan bay waxay codsadeen odayaashiyadu inay odayaasha dhinaca kale ee saacad ay soo gudbiyaan oo ay xabada laga daayo aan la xabadaynin ilaa waxa soo gudbiya maba ahan baadii la ku roon yahay ma aha odayaashii nabadee waa nimankii deegaanka oo inay dagaalamaan raba halka markaan taaganay xabadu lagu bilaabatay hadda saacadan waxay taagan tahay meeshii awal la isku haystay ilaa stationkoodii ilaa iyo hadii la ku roon yahay wadadii ay joojiyeen ilaa iyo controlkii ilaa dugsiga ummadda ilaa iyo city center ilaa darxume ilaa inta inay saacadan ka banaan yihiin wixii dhimasho iyo dhaawac iyo damage halkaas ka dhacayna nimanka odayaasha suuqa ay sheegay naga codsaday inaan wadada u furo baa iska lahaa hadii meesha wax qasaara maanta ka dhaceen oo gubasho ka dhacday oo dhimasho ka dhacday oo dhaawac ka dhacay walaalaha iyo saacad baa iska halka afkan ku sii cadeynaya walaalaha saacad baa iska leh oo anagu diilaa ku roo yahay nimankan kale ay shaarka u galiyeen waxba ka fahmayno haddana waxaan warbixinta meesha ka bixinayaa waa wadadii diilaa ku roo yahay ay awal joojiyeen oo ay diideen in la dhiso aad baan uga xumahay inaan ku faano dagaal Gaalkacyo sida qolada koonfurta oo kale dadku way soo kaymid laakiin waxaan idin sheegayaa saaka qoladii isu moodmoodo hadda meel inta shacabka ka soo gasho orange meel heblaan haysanaa inaan iska difaacnay waxaan idin cadeynaa inaan ka sifaynay oo aan hadda qof iyaga ah joogin ciidankayaga afarta harood magaalada kala laabtay shacabku inuu isdajiyaan rabnaa reer Mudug way soo kaaya mid inayan qaxin dadka Galmudug laftiinaan idin difaacayno idin ka difaacaynaa mooryaantiina inayan idin bilaqaysan waxaan oranahay qaxina qof shacab oo aan taabanayno iyo hanti shacab oo aan taabanayna ma jirto Mudug oo dhan waa difaacaynaa dadka Gaalkacyo degan mooryaantiinu idin kama sokeeyaan dadka kale to mooryaan waa mooryaan waxay saakiin dhigayaan ciidankana waa mooryaamin weeye way idin ka difaacaynaa waxaan ka codsanaynaa inaydan qaxin oo isdajisaan shacabku inuu soo noqdo la rabaa ku soo noqdo labada dhinacba dadka reer Galmudug oo u qaxay meelaha aan biyaha lahayn oo cirid cidlada ku leysay oo malaarida shubanku caruurta kaga dhacday ku soo noqdo magaaladiina aan idin daawayna caruurte waxa way anaga dhinacayaga biyay lahayd oo matooray lahayd oo ballibay lahayd oo dadkaas waxaan ognaa inay baaba'een hal la soo cesho arxalaawayaasha waa idinka difaacaynaa hadii aan leeyahay ku soo noqdo magaalada dhamaantiin waa maadan